Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummada soomaalida meel walba ay joogto. Waxaan jeclaan lahaa inaad kusoo dhawaataan channelkayga. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan falka celin suubiyo ama reaction garoonka weyn ee diyaaradaha wadanka Qatar oo magaciisa la dhaho Hamad International Airport ama Hamad International Airport saa u taqaanidba. Garoonkan waxaan hakad ku ahaa 2 mar. Marka hore waxaan u socday dalkii hooyo, marna waan ka soo noqonayay. Garoonkan waxyaabaha oo aan ku doortay aniga waxaa ka mid ah garoonka waa garoon yar marka loo fiiriyo garoomada kale oo caalamiga oo wadamada kale marka loo fiiriyo way fududahay sidaad ku ogaatid meeshaad ka imaanaysid iyo meesha u socotid. Marka loo eego garoomada kale oo waaweyn wadamada reer galbeedka ama Yurub ha ahaato mise ha ahaato Mareykanka, wax kale oo ku jeclaada waxaa waaye waxay leedahay qolol oo degan oo aamusan. Ragga iyo dumarka 2 meel ay kala leeyihiin oo ay ku nastaan. Haddii aad hakad ku tihid waqti dheer waxaad imaan kartaa goobta lagu nasto, waana goob oo la aamusan yahay, buuq iyo waxaas ma jirto. Waqtigaa rabtid ayaad ku nagaanaysaa goobtaas. Garoonka waxa uu ku fiican yahay sida aan sheegay way fududahay inaad ogaatid meesha ka socotid iyo meesha u socotid. Kaagama baahno inaad raacdid sida garoomada kale. Kuwa waxaa jirto oo la raaco tareen la raaco, kuwa waxaa jirto la raaco basas la raaco ama shuttle oo baabuur yar la raaco oo in muddo qaadanayso inaad ku tagtid meesha kale. Laakiin garoonkan wuxuu ku fiican yahay waa garoon kooban, wayna fududahay inaad ogaatid meesha ka imaaday iyo meesha u socotay. Waxaa kala joogo shaqaalooyin aad loo tababaray oona mar walba hiilan inay ku caawiyaan. Waxaa kaloo isticmaali kartaa muraayada meesha taalo. Muraayada meesha taalo waxa ku qoran ama telefishinka waxaa ku qoran meesha ka imaanaysid iyo meesha u socotid iyo waqtiga bixaysid ayaa ku qoran. Mararka qaarkooda bini'aadan aan nahnay waa wareeri kartaa. Haddaa wareertid waxa ugu horeeya aad sameynaysid waa inaad qofka kugu dhow oo meesha ka shaqeeya aad weydiisid. Ceebna ma aha badanaa maxaa yeelay airportada waa meelaha zaid dadka lagu wareero khaasatan haddaad aad hakad ku tihid oo meel badan. Airportkan waxa uu ku fiican yahay waxaa waaye oo aan ku jeclaaday waxaad ka helaysaa adeega wax walba aad rabtid, alaab walba aad rabtid. Haddaa lacala oo markaad soo bixaysay alaabo aad soo hilmaamtay oo adeegka binafsi ama ehelkii aad u wadid, meeshan ayaad ka helaysaa. Waxay leeyihiin moolal zaid u waaweyn oo aad ka heli kartid alaab walba aad rabtid. Waxa kale ay leeyihiin waxaan kaloo aad aniga ahaan aga helay waa cuntada. Waana wax xalaal waaye, waa wadan muslim ah. Waxa ugu horeysay oo markaan dooranayay ay ka mid ahayd diyaaradda waa cuntada waaye. Maana rabin inaan raaco diyaarad oo aanan ogeyn waxa aniga cunayo. Waxa kale oo ku fiicanta waxaa waaye Qatar hadda wadankii ayay si toos u imaadaa. Ma aha inaad wadamada dariska ah aad martid. Midaasna waa adeeg wanaagsan ay ku soo dareen.